من الحاس كسران ديارو waxaad maqli doontaan waraysiga aanu la yeelanay Muna oo ah inanta tiri gacantayda yarad la'aan iyo gabaati la'aan qabo oo meher xalaal oo nixalaasho oo kaama dooniyo waxoola ah iyo waliba waraysi isagana aanu ka qaadnay Cabdiyare oo ah wiilka inantu ay nafteeda u hibaysay waliba waxaanu la yeelanay waraysiga isaga oo furinta dagaalka ku sugan Munay waxa jira warar la isla dhaxmarayo oo sheegaya in aad naftaadi u hubaysay nin askariya oo magaciisa Cabdiyare la yiraahdo bal warkaasi waxa ka jira noo faahfaahi صح ويا ولا Munay sidee ayuu kuugu dhashay fikirka ah in aad naftaada u hibayso askari kamida askartii geesiyaashaha ee u dagaalamay dawlad deegaankaasi ee cadowga uga dhiciyaan geesinimadu muujiya iyo fikirkaasi ugu dhashay wala waayahay Munay wax aqoon oo hore miyaad isu lahaydeen Cabdiyare si adigu wax aqoon ma u lahayd may wala wax aqoon oo mali marka xagee ayaad ka heshay sawirka Cabdiyare hadaydan aqoon ba isu lahayn ama magaciisa baraa bulshada ma kale Munay marka laga hadlayo ciidamada dawlad deegaanka waxay muujiyeen geesinimo ruuxantii aad iyo aad u weyn waxaana ay jabiyeen cadowgii oo dhirbaaxa ay ku dhufteen haddaba waa farabadnaayeen ciidamada halkaasi ku dagaalamay ee naftooda u huray in ay dadka cadowga ka difaacaan maxaad ku soo xulatay Cabdiyare sidee ayaad ku dooqatay sidee ayaad isaga kaliya uga la dhaxbaxday ciidankii faraha badnaa ee halgamayaasha ee dagaalamay geesinimadu ciidankiisa yiri dib u joojiyay ana biimadaas ku qarxinaye waayahay naftayda ana biimeynay bal Munay markan waxaad nooga warantaa qoyska ma la tashatay haddii aabi hooyo nool yihiin ama adeero iyo qoyska iyo walaalo reerkii miyay kugu raaceen sidee ayay u ogolaadeen in inantii iyadoo yarad iyo gabaati iyo wax laga bixiyay toona aanay jirin gurigii lagala baxo oo nin ay raacdo ay u meheriyaan oo u hibeeyaan iyaga oo sida dhaqanka Soomaaliga ay naqaanana inanta loo soo gogol fadhiisto oo inanta xoolo laga bixin jiray bal Munay taana nooga waran reerku miyay kugu raaceen mise waxa jira khilaaf xagga jira kolkii qofna kala ma tashanaan go'aankaas iga soo qaay Munay haddii aynu reerka intaa kaga nimaadno Cabdiyare in ay sheekadaada iyo qisadaadu gaadhay iyo in kale maxaad warka haysaa ma gaadhay sheekadu Cabdi way gaadhay baa la yidhi isna waan ku faraxsanahay annaga iyo familkayga oo dhan way ku faraxsan yihiin waayahay ugu dambeyntii saacada laga bilaabo waxa diyaar u tihiin inaad qoys wada noqotaan من الحاس كسران ديارو daawadayaal markana aynu la xidhiidhno Cabdiyare oo goor dhaweyd ii sheegay in aanu wax qoysa iyo xaas hore aanu lahayn oo taasina ay tahay war kale oo u wanaagsan inantii Muna ayaan laba su'aaloodun la gaari doonaa maadaama uu hawshii ciidanka iyo halgankii uu dhexda kaga jiro ugu horeyntii Cabdiyare ay weydiino Cabdiyare warka Muna ma ku soo gaaray warka Muna soo gaaray waayahay sidii aad ii sheegtay waxaad ku jirtaa hawl qaran oo weyn miyaad aqbashay dalabkaas ay ku soo bandhigtay inantaasi Muna mise arintaasi talo ayaad isugu laabanaysaa oo war ayaa kugu laaban aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiyare daawadayaal sida aad wada maqlaysaan Cabdiyarena waa aqbalay reerkaasna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu dhawaan dhismi doono oo dhaqmi doono